waxaan rabaa inaan halka sheego dhalinyaradana way ku jirtaa si xoog leh ugu jirtaa waliba ay xukuumadda ugu jir doontaa hadii la yiraahdo marka waxaan rajaynayaa kuwa wax qabad leh oo dhalinyarada hadii la yiraahdo hadda kadib loogu xisho inay xukuumaddu dhalinyaro noqdaan inay noqdaan insha Allah hadii la yiraahdo inaan idinla wadaago prioritiska xukuumadda iyo waxa hor yaal prioritiska xukuumaddan waxaan rajaynayaa inay xukuumadii hore kaga bedelaato inay taabato waxa qofka Soomaaliga caadiga u baahan yahay qofka caadiga ah ee Soomaaliga waxa uu u baahan yahay inay taabato prioritiskeedu inay waxa ka tarjumaan oo loo translate gareeyo in programs iyo dawladii wixii ay qaban lahayd in loo tarjumo ayaan rajaynaynaa sababtoo ah waxaan isleenahay wadankan waa soo fadhinay waa soo joognay macallimiin ka soo noqonay bulshada inta ugu macquulsan la fariisanay waa ka soo dhex shaqeynay inaan dareemi karno wadankan waan joognay waxa aad wada dareemaysaan waaye wax aan hubo in ay dib idinka soo gaaray waaye waxaan hubo in maalin walba aad la kulantaan waaye waxaan hubo in maalin walba jidka la idinka xiro maalin walba jaamacadda markaad dhigan jirtay inaad iskuulka markaad dhigan jirtay jidkii baa la xiray meeshuu dagaal ka socdaa intuu wax ka samaysmay maalin walba la kulmi jirteen marka priority number 1 xukuumadda waxa waaye in nabadgelyada la sugo nabadgelyada waxa keeni karta Soomaali baa keeni karta cid kale ma keeni karto waxaan rabnaa nabadgelyada waa priority dawladda طبعا nabadgelyada waxa la socda wax dhan oo aan ka maarmin oo waxa waaye la socda garsoorka oo la wanaajiyo ya law enforcement oo dhan booliiska oo la hagaajiyo garsoorka oo la wanaajiyo corruption oo la diriro oo la dagaalamo waxa soo dhan waxay la socdaan security la socdaan marka cadaaladda in la toosiyo marka waxaan rabnaa priority-gaas taasa dawladda hortamin u leh taasa priority taasa insha Allah ku dhaqaaqayna waxaan ka rabnaa marka bulshadeena oo ay dhalinyaradu u yihiin runtii indhaha ugu muhiimsan yihiin waxaan rabnaa in priority-gaas maskaxda aad gashataan oo aad ogaataan inaynaan barwaaqo ma gaari karno wax horumar ah lama samayn karo haddaan amni la samayn rajaha ka qabin marka goormaa marka jidaan dhisanaynaa goormaa buundooyinka dhisanaynaa goormaa beera wax ka qabsanaynaa goormaa shidaal qodanayna ya goormaa dadkeena tira koobaynaa goormaan ahzaab samaysanaynaa goormaan doorasho galaynaa xoriyo goormaan dastuurkeena dhameystiranaynaa ya waxaan rabnaa inaan hadda iska bedelno security-ga marka la sheegayo security-ga wiilasha intii la diro oo la tababaro Turkiga laga keeno Uganda laga keeno Ethiopia laga keeno Eritrea laga keeno orday oo idhab anta warabuka faqatil ayna ha huna qaacidun ma ka security kuma samaysmaayo ka security kuma samaysmaayo waa kana sheegaynaa dadka wada xanaaqsan oo isku mid ah ay isku meel u dhaqaaqeen waa kaan baa wax lagu sixi karaa wixii kale waan wadaynaa waa sii wadaynaa inaan economic reformska ayna sii wadno waxa la wixii horumaraha in la sii diyaar garoobo hay'aduhu ay sii shaqeeyaan laakiin priority-ga dawladda iyo meesha focus-ka u saaran waa meesha in badan ma isku soo noqon doonaa oo wada shaqeyn doonaa hadii la yiraahdo maxaa jira dhalinyaradu meesha wax ka jiraan dhalinyaradu waaye mustaqbalku ayaga waaye dalkan ayaga iska leh ayaga laga rabaa inay amniga sugtaan waxaan idinka codsanayaa si sharaf leh idinka codsanayaa iyo si xushmad laba in aad dawladda la soo dhisi doonana si kaliya laaba aad ula shaqeysaan waa maasantii